madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada Muqdisho. madaxweynaha oo maalmihii la soo dhaafay ka maqnaa dalka ayaa dalka Japan uga qayb galay shirka toddobaad ee horumarinta iyo iskaashiga qaaradda Afrika iyo dalka Japan. intuu madaxweynuhu ku sugnaa Japan waxa uu kulamo gooni ah la yeeshay ra'iisul wasaaraha dalkaas iyo madax ka tirsan bankiga adduunka. madaxweyne Farmaajo ayaa ra'iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe uga mahadceliyay sida diiraneed ee isaga iyo wafdigiisa loogu soo dhaweeyay dalkaasi. waxa kale oo labada mas'uul ay isla garteen in la xoojiyo xiriirka iyo iskaashiga u dhaxeeya labada dawladood iyo shucuubtooda. dhinaca kale madaxweyne Farmaajo ayaa madaxda bankiga adduunka iyo kan horumarinta Afrika waxa uu kala hadlay arrimo la xiriira dardargelinta wada shaqaynta labada dhinac, cafinta deymaha horey loogu lahaa Soomaaliya iyo in ay ka qayb qaataan sidii Soomaaliya looga hirgelin lahaa hanaan maaliyadeed oo hufan oo caalami ah. dawladaha Afrika oo xubin buuxda ay ka tahay Soomaaliya iyo dalka Japan ayaa waxa ka dhaxeeya xiriir soo xoogaysanaya oo lagu horumarinayo wax soo saarka iyo ganacsiga qaaradda Afrika. xiriirkaas ayaa Soomaaliya ka caawinaya sidii ay dib ugu soo celin lahayd wax soo saarkeeda dhinacyada badan iyo sidii ummaddu ay uga faa'iideysan lahayd kheyraadka kala duwan ee ku manaystay. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dadaal ugu jirta sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka hareeyay Soomaaliya intii ka dambeysay burburkii dalka ka dhacay sanadku markuu ahaa 1991. dowladda ayaa in badan sheegtay in ay ahmiyadda koowaad siinayso arrimaha nabadgelyada, siyaasadda, dhaqaalaha, dhismaha ciidamada, dimuqraadiyadda, xiriirka caalamiga ah, arrimaha bini'aadanimada, dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha, dhamaystirka dastuurka dalka, hirgelinta doorashooyinka ku salaysan dimuqraadiyad iyo arrimo kale oo muhiim ah.